السلام عليكم waxaa lagu tilmaamaa cunooyinka healthiga ah ama caafimaadka laga helo kuwa ugu wanaagsan Soomaaliduna waxay u ahayd cuno qadiimi ah waliba la siiyo dadka caafimaad ahaan u tabarta yar sida hooyada umusha ah aabaha waayeelka ah iyo caruurta yaryar marka ay soo korayaan boorashka oo maanta mowduuceena ku saabsan yahay waxaan rabaa haddii aad maalin walba cunto maxaa jirkaaga ku dhici kara waxaa laga yaabaa in aad dhibsato ama aad u aragto wax aan la sii wadi karin in hal cunto maalin walba lagu celceliyo balse marka aad la qabsato faa'iidadeedana aad maanta dhagahaaga ku dhigto waxaa kuu soo bixi doono fikirka hadda kaa dhex guuxaya mid aanan ahayn baaritaano badan lagu sameeyey kadib waxaa la ogaaday in boorashka kow uu ka qayb qaato miisaan dhimista weliba inta ay jirkaaga ku jirto amaba inta aad boorashka cunaysid waxaa kuu sahlanaanaysa jirkaaga inuu helo nafaqooyinka u baahan yahay oo wadata fitamiinada iyo mineralska jirkaaga uusan ka maarmeynin faa'iidada ugu horeysa marka boorashku waa nafaqo barahan cunto balance ah carbohydrate-ka ku jirana waxay ku tilmaamaan inuu ka mid yahay qaybaha carbohydrate-ka ugu wanaagsan protein wanaagsanna way leedahay waxaa ku jiro vitamins iyo minerals sida magnesium phosphorus copper iron zinc folate vitamin B1 iyo vitamin B5 sidoo kalena macdamaha waaweyn ee caanka ah lafuhuna aysan ka maarmin lagama reebin calciumka iyo potassiumkana way leedahay hal koob haddii uu qofkii subaxii ka cabo waxaa kasoo gaaraya 50 gram oo carbohydrate ah 13 gram oo protein ah 5 gram oo fat ah iyo 8 gram oo fiberka weliba kan ugu wanaagsan fiberka ah waxayna isku noqonaysaa 303 calories nafaqo gaaraysa faa'iidadeeda labaad mashaaridu waxay qani ku tahay antioxidant weliba mid khaas ah oo ka timaada dhirta laguna magacaabo polyphenols-tan waxaa ka dhasha sidoo kaleete maado ay ku magacaabaan evananthromides maadadan evananthromideska la dhaho waxay hoos u dhigtaa blood pressure-ka sidoo kale waxay ka hortag u tahay cudurro badan oo jirkaaga asiibi kara sida kansarka keliya xanuunka iyo xanuuno kale oo aanan meeshan lagu soo wada koobi karin boorashka sidoo kaleete waxaa laga helaa beta glucon fiber ay ku magacaabaan maanta waxaad la socotaan cudurka ugu daran ee ummadda kala yareeyey waa wadna xanuunka adduunka aan ku noolnahay boorashkana waxay xambaarsan tahay maadada lagu magacaabo beta glucan oo ah qayb fiber ka mid ah oo hoos u dhigta kolestaroolka qaybtiisa xun sidoo kalena blood pressure-kana hoos u dhigta bakteeriyada dheefshiidka u baahan yahayna ka qayb qaadata kor u qaada faa'iidada afaraadna waxaa lagu sheegaa in boorashka dhereg ay leedahay dabcan haddii cuntaduna ay dhereg leedahay oo ay waqti kaa celin karto inaadan cunto kale ama waxyaabo aanan macno weyn kuu samaynaynin aadan cunin waa cunto wanaagsan waxaadna ogaataa miisaankana way kaa ridaysaa cuntada noocaas ah li'annahu qofka inuu miisaan koro waxay ku qasban yahay inuu wax cuno laakiin haddii wax cunowgaaga uu hakad galo dabcan miisaankaagana hakad ayuu galayaa sidoo kalena beta gluconkii aan kasoo hadalnayne waxaa jira hormoon oo soo sii daayo oo lagu magacaabo BYY ama ana hormoon hoos u dhiga qofka mar walbo inuu gaajo dareemo faa'iidada shanaadna haddii ay boorashka guduhu ka qayb qaadatay banaankana ma ka qayb qaadataa dabcan skin care-kana way ka qayb qaadataa sidoo kale maadooyinka ku jira boorashka awgeed waxayna ku leedahay qiso dheer marka dib loo fiiriyo shirkadaha wax isku dardara ee soo saara kareemada maqaarka la mariyo qodobka lixaad waxaa la sheegaa boorashku in ay asmada caruurta yaryar ka yarayso inkastoo sidaan wada ognahay neeftu ay ka timaado inflammatory disorder ku yimaada tubooyinka hawada gaarsiiya kana soo qaada feeraha calaamadaha asmada inkastoo ay haddana kala duwan yihiin waxaa jira istaadiyo la sameeyey oo sheegaya in caruurta la siiyo boorashka marka ay yaryar yihiin ay aad ugu qayb qaadato in ay asmada 60% ilaa 50% ay ka badbaadin karto allahu aclam faa'iidada ugu dambaysana dibiryada way u wanaagsan tahay haddii aad tahay qof subaxdii markuu canjeere iyo maraq ama canjeere iyo saliid cuno ama cuntooyin kala cuno calooshu intaa soo gaarto dibiryadaas boorashka ayaa daawo u ah ku soo darso jadwalkaaga cuntada walaalkiin kood sabriye salaamu calaykum